waxa uu ahaa kulan ka duwan fadhiyadii in dhowaanaba halkan ku qabsoomayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo golo fariistay kulan gaar ah oo ay yeesheen xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka ayaa xubnaha golaha shacabka ka dalbaday ansixinta iyo kalsoonisiinta ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo ku tilmaamay shakhsi leh aqoon karti iyo dareen wadaniyadeed oo uu ku gudan karo mas'uuliyadda loo igmaday. ujeedka kulankan ama ajandaha wuxuu yahay codsi aan idin soo diray oo aan kaga codsanayo in la ansixiyo ra'iisul wasaaraha magacaaban Maxamed Xuseen Rooble inuu noqdo mas'uuliyadda qaado ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya. mudane Maxamed Xuseen Rooble waa muwaadin Soomaaliyeed oo way arag ah oo aqoon-yahan ah oo wadaniyadiisu ay sareyso oo aan ku aamini karo xilka. waxaan idinka codsanayaa marka guud ahaan xildhibaanada sharafta leh inaad ila qaadaan oo aad ansixisaan maanta hadduu Ilaahay yiraahdo. Mudane Maxamed Xuseen Rooble ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka ayaa ka hor ansixintiisa xubnaha golaha ka dalbaday inay codka kalsoonida siiyaan si uu u soo dhiso xukuumad si aan baqaada qorshayaasha dib u dhis iyo horumarineed ee dalka. inta kadib guddoonka golaha ayaa xildhibaanada faray inay codka kalsoonida u qaadaan ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka waxaana ansixinta ra'iisul wasaaraha cusub ogolaaday 215 xildhibaan ma jirin xildhibaan diiday ama ka aamusay sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. wax ka aamusay ma laha wax diiday ma laha waxaa ra'iisul wasaaraha kalsoonisi ogol u codeeyay 215 xildhibaan. ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo golaha loogu dhaariyay mas'uuliyadda cusub ayaa xildhibaanada kaga mahad celiyay kalsoonida ay siiyeen waxa uu ballan qaaday inuu soo dhisi doono xukuumad cusub oo xoogga saari doonta arrimaha ay ka mid yihiin ammaanka doorashooyinka iyo horumarinta dhaqaalaha kana jawaabta baahiyaha dawladnimo ee dalka ka jira. marka hore waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kalsoonidii uu magacaabay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 17kii bisha Sebtembar ee 2020 ina siiyay fursadan qaaliga ah. sidoo kale waxa aan guddoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada sharafta leh uga mahad celinayaa fursadan taariikhiga ah oo aan idinkugu horeyn iguna siisaan codkiina kalsoonida. mudanayaal marwooyin howlaha ugu horeeyo ee aan mudnaanta siin doono hadduu alla ii idmo waxaa ka mid ah 1 arrimaha amniga 2 arrimaha doorashooyinka 3 horumarinta dhaqaalaha iyo adeegga bulshada 4 cadaaladda iyo garsoorka 5 dowlad wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuqa 6 dib u eegista dastuurka 7 dhab u heshiisiinta in heshiiska dhab loo gaaro 8 iskaashiga caalamiga ah. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulanka soo xiray ayaa xildhibaanada golaha shacabka kaga mahad celiyay ansixinta ra'iisul wasaaraha cusub ee uu soo magacaabay. sida codka aqlabiyadda aad u siiseen ra'iisul wasaaraha cusub waxaa lagu soo wargeliyay in codka kalsoonida ah uu ahaa 215 cidna aysan diidin cidna aysan ka aamusin sidaas darteed aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa kalsoonida aad siiseen. waxaan rajeynayaa insha Allah qaybtii hore weytan qaybta labaad uu ra'iisul wasaaraha soo dhisi doono xukuumad tayo leh inaad sidaas oo kale aad siisaan cod buuxa oo aqlabiyad leh insha Allah haddii la yiraahdo waana mahadsantihiin. Shucayb Maxamed Cali warbaahinta qaranka Villa Hargeysa.